Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkeena barbaarinta wanaagsan. Maanta waxaan ka hadli doonaa sidee ilmaha loo dhiirigeliyaa si uu uga koro ama uga kobco maskaxda. Waxaa jira 3 hab oo ka caawinaya korniimada maskaxda ilmaha 3 sano ee ugu horeysa. Haddaba 3daas hab waxay yihiin ciyaarta. Waxa ugu horeeya qodobka ugu horeeya waa ciyaarta. Ciyaartu waa habka ugu cajiibsan ee ilmaha maskaxdooda lagu koriyo. Ciyaartu waxay ka qayb qaadataa koritaanka garashada. Ciyaartu waxay ka qayb qaadataa koritaanka garashada in ilmaha uu wax kala garto oo ay sheegaan ashyaadii kala barto ka caawinaysa ilmihii. Sidoo kale ciyaartu waxay ilmaha ka caawisaa koritaanka. Waxay ka qayb qaadataa koritaanka jirka. Noqonaya bulshada dhexdeeda way ka qayb qaadataa in ilmuhu ku koro sida ilmihii bulshadii buu kala garanayaa. Wuxuu kala garanayaa qofka u dhow, wuxuu kala garanayaa qofka ka fog oo aan wax ka reey iyo wax daryeel aan siinin. Wuxuu kala garanayaa walaalkiis kan la ciyaara iyo kan aan la ciyaarin. Ilmihii marka bulshada dhexdeeda ciyaartu saameyn bay ilmihii ugu yeelanaysaa. Sidoo kale ilmaha fiyoobida dareenkiisa dareen ahaan in ilmihii ahaado ilmo fiyoow oo dareenkiisa maskax ahaan inuu ilmihii noqdo ilmo fiyoow. Ciyaarta qayb aydan ka tahay. Ciyaarta ilmaha marka uu ciyaariyo waxay noqon kartaa ciyaarta ilmuhu ciyaariyo waxay noqon kartaa game bay noqon kartaa markaas uu game ciyaariyo. Sidoo kale waxay noqon kartaa ciyaar mala awaal ah oo wuxuu ilmihiin tuu sameeyo oo dhiso oo haddana burburinaya wax kale oo sameynaya. Sidoo kale waxay noqon kartaa alaabaha ama agabka lagu ciyaaro si ay u daawadaan una ciyaaraan. Ilmihii markii wuxuu baranayaa ashyaadii wuxuu alaabahaas hadda markii anagu badankeena Soomaalida marka yaryarayn waxaan sameyn jirnay alaabeys baan sameysan jirnay waxba ku ciyaari jirnay. Ilmaha markuu yar asoo yar waxbuu dhisayaa guri buu sameynayaa wuxuu soo ururixmo wax uu ku ciyaaro hadda uu burburinaya haddana si kale u dhisanaya maskaxdii korniimadeeda qayb ka tahay. Ilmihii in loo heeso ina u heesido asagii la hadashido u sheekaysid adoo dareensiinaya inaad la ciyaaraysid ayadana waxay korinaysaa maskaxda. Qodobka labaad waxa weeye xasiloonida ama deganaansho in ilmihii uu dareemo xasilooni ama deganaansho. Ilmihii waxay siinaysaa in maskaxdiisa korto. Ilmaha waxay dareemi karaan xasilooni la'aan ama ciriiri. Ilmaha marmar bay xanaaq iska soo jarayaan si ciriiri iyo adiga xasilooni la'aan ka dareemaysaa. Haddaba u jawaabida jacayl u muujinta iyo daryeelida ilmaha waxay ka caawinaysaa inuu noqdo mid ka maran ciriiri iyo cilciil iyo xasilooni la'aan mid ka baxsan buu noqonayaa ilmihii. Haddii ilmaha wuxuu ku weydiiyo aga jawaabtid oo sheekadii la hadalkii bay noqonaysaa jacayl u muujisid oo ilmaha alaabta intaad galisid aad habsiisid adigoo salaaxaya iyo daryeelida ilmihii daryeel u muujisid daryeelisid u muujisid waxay ka caawinaysaa inuu noqdo mid ka maran oo ka madax bannaan ciriiri iyo xasilooni la'aan. Qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa akhriska. Akhrisku waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee kor loogu qaado maskaxda carruurta. Ilmihii hadduusan ahayn mid wax akhrinaya erayadii ama xarfihii aanan akhrin karin ilmihii wuxuu ilmahaas garanayaa maqlida erayada iyo arkida sawir inuu wax maqlo oo wixii dhawaaqay fahmo haddana arko sawirkii. Marka maqlidii eraygii uu maqlo iyo sawirkii uu arko labadaas oo isla socda ilmaha waxay ka caawinaysaa inuu maskaxdiisa kobco kala baranaya ashyaadii shay kasta markuu arko at same time wuxuu garanayaa magaciisa. Ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan. Inta fiidiyo la mid ku kulmayna waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo inaad asxaabtiina la sii share gareysaan fiidiyogan like tana aad noo saartiin.
subscribe-ta noo saara adinkoo aad u mahadsan.